عاشق الجنان والفوز والغنيمة فخذها بالمعاني بسيطة عظيمة. الدين بالأخلاق بالجود والعزيمة بالحب والوفاق حياتنا كريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحديث الخامس عشر، حديث كتبان إيشانات. هذا كان محله حديث كبوسكي سوى الأمانة أمانة. هذا كان محلها أمانة بوسكي ذو. عن أبي هريرة، أبي هريرة حقيس وحا لقوري رضي الله عنه. أبي هريرة حقيس الله كراضي النقضية. عن النبي، نبي حقيس نحاله كوري صلى الله عليه وسلم قال النبي إنويري آية المنافق، منافق على مديس 3 سدح واي. إذا حدث مركو شاكين أيه منافق مركو شاكين أيه كذب وبين شاكا أو بينه كشاكيا. وإذا وعد مركو بلن قاضو أو بلن قاضنين أخلف وقوبيلا بلن كيو كبحاوة. وإذا أتمنى مركي لآمنني خان وخيانة. ودرسيني سقالات كتاب كيني تحفة المشتاق. حنسو قارن حديث كشان الطبانات. حديث كشان الطبانات وحو كساب سنة أموك قهلا شيخه أمانة وحل إرادة. وحان معناها لحد وقجفنا أبوابتي أو حسن الخلقة بعد وناقة قيبها أو كوكوبية أما أبوابته. waxaan soo qaadanay xishoodka inuu kamid yahay dabeecadda wanaagsan. sidoo kale waxaan soo qaadanay alwarac xalaal miiradku inuu kamid yahay dabeecadda wanaagsan. waxaan soo qaadanay alcifa dhowrsanaanta uu qofku is ilaaliyo inay kamid tahay dabeecadda wanaagsan. waxaa kaloo soo qaadanay asidqu runtu inay kamid tahay dabeecadda wanaagsan. dabeecadii wanaagsan ayaa lagu jiraa marka amaanada ayaa kamid ah. xadiidka marka waxaa laga wariyay saxaabiga la yiraahdo Abu Hurayra. Abu Hurayra tarjamadiisa hore u soo qaadanay. Abu Hurayra marka wuxuu leeyahay radiyallahu anhu, nabiga asoo ka warinaya ayaa nabigu wuxuu yiri aayatul munaafiqi 3. calaamada munaafiqa lagu yaqaan waa 3 calaamadood. macnaha 3dan laftirkeeda cadadku mafhuuma ma laho. 3da kaliya kuma koobna, laakiin waa 3dan waxay kamid yihiin astaamaha waaweyn oo dadka munaafiqiinta lagu yaqaan. marka nifaaqu culimadu waxay yiraahdaan nifaaqu waa 2 qayb. nifaaq la yiraahdo amali iyo nifaaq aqadi la yiraahdo. nifaaq la yiraahdo aqadi oo xagga aqeedada ah qofku wuxuu aaminsan yahay ah. iyo nifaaq la yiraahdo amali oo xagga amalka iyo dhaqanka ah. nifaaqa aqadiga marka waa gaalnimo keena asoo waa gaalnimo. xayelo waxa waaye idhaarul iimaani wa ibdaanul kufri. waa qofku inuu iimaan iyo islaamnimo muujisto gaalnimana ay qalbiga u qarsoon tahay. kaas waa gaalnimo keena oo waaba gaalo qofkii maaragta lagu arko dhaqankaas ee qalbiga iimaankii ka muujisto kor dadka u muujiyo inuu muslim yahay qalbigana ka aaminsan gaalnimo. kaas waxa waaye gaal waayaba. munaafiqnimada noocaas markay gaartay gaalnimay gaarsiinaysaa. kan labaadna waxa la yiraahdaa waa nifaaq amali ah. nifaaq amali waa maxay? nifaaq oo qofku amalkii munaafiqiinta uu la iimaanayo. iimaan iyo islaamnimo ayuu haystaa, waa mu'min, waa qof wana iimaanka ilaahay rumaysan. islaamku wuxuu amrayay islaamnimadkii maaragtay rumaysan, laakiin camalkiisa iyo dhaqankiisa markaad fiiriso oo wuxuu la iimaanayaa acmaashi munaafiqiinta. xadiisku marka midka uu ka hadlayo waa nifaaqas amaliga oo qofka inuu arrimahan hadda uu xadiisku sheegi doono markuu sameeyo camalkii munaafiqiinta ayaa ku sugan. saadarte nabigu wuxuu leeyahay aayatul munaafiqi, munaafiqa aayadiisa ama calaamadiisa waa 3 1. إذا حدث كذب
marka uu sheekaynayo waa been uu sheegaa beentu waa khatar waa sifaadka munaafiqiinta lagu yaqaan qofka mu'minka waxa la rabaa inuu iska ilaaliyo ka dhowrsado wa idha wa'ada akhlafa marka wax ballan qaadane oo waxaasan bixinaya ama waxaasan dhiibaya ama waxaasan ku sameynaya uu yiraahdo qof ballanka uga baxa akhlafa ballantii uu galo ka baxa idna waa sifo munaafiqiinta dhaqankaas idna dhaqanka munaafiqiinta ayuu kamid yahay wa idha atumina khana hadii maaragtay la aaminana khiyaano la yimaada xadiidka markii qaybtaas dambe oo asugu sheekhu u soo qaatay amaanada marka munaafiq hadana waxyaabaha lagu yaqaan waxa kamida hadii la aamino oo wax loo aamino wixii lagu aaminay waa khiyaano marka sifaadkaasi waa sifaad munaafiqiinta lagu yaqaano waana nifaaq amaliya qofka mu'minka waxa la rabaa marka inuu iska ilaaliyo beenta waa khatar badan tahay qofkan waxay gaarsiinaysaa waa faajirnimo sida xadiidkii ka horeeyay aan ku soo qaadanay wa iyaakum al-kadhiba fa in al-kadhiba yahdi ila al-fujur iska jira beentu waxay ku gaarsiinaysaa faajirnimo iyo faasiqnimo wa in al-fujura yahdi ila an-nar faajirnimada naar ay gaarsiisaa marka waa khatar badan tahay ballanka baxyaduna sidoo kale ma wanaagsano ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku leeyahay quraanka wa awfu bil ahdi inna al ahda kana mas'ula ballanka in la oofiyo rabaadana sidoo kale khiyaanadana waa dhibaato badan tahay oo amaano ilaahay wuxuu kugu aaminay khiyaanadaas marka waxa soo galay amaanadaas waxa soo galay amaanadii dadka caadiga ah ay qofka ku amaaneysteen oo qofka hadii wax loo dhiibto amaano ah inuu xafidaal raba oo amaanada si sax u guto in Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha saasuu leeyahay ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahay wuxuu idin amrayaa inaad amaanaadka la idin dhiibtay ehelkooda aad u gudataan waxa kale amaanadan soo galayo amaanadii ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo rasuulkiisa ballanka uu la galo qofku ila qofka mu'minka ballan ayuu ku jiraaho daacada ilaahay inuu fuliyo macaasida ilaahay ka fogaado ayaa ilaahay ballankaas uu kula galay rasuulkuna ballankaas uu kula galay iidana inaad amaanadeeda ilaalisaal rabaa yaa ayyuhalladina aamanu la takhunu allaha war rasuula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun الحديث السادس عشر حديث كاللحية طبنات وحديث كطبن اللحاد هذا محله القناعة وحكو سابسين حديث كان طبن اللحاد السونة وحل إلى القناعة قناعة قفه إنه قنعه وحي إلهي سي سبحانه وتعالى وكو قنعه عن عبد الله وحال لقوري عبد الله قاسو ابن عمر والكيسا عمر قاسو ابن عاصي والكيسا رضي الله عنهما labadooda Allah ka raadin noqday waa laba saxaabi anna rasuulullaahi rasuulka ilaahi sallallahu alayhi wasallam qaala rasuulku inuu yiraahdo laga wari qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima aataah qad aflaha man ruux ayaa liibaanay aslama hoggaansamay oo islaam noqday oo wa ruziqa hadana la irsaaqay qofkaas kafafan in kufilan wax kufilan la siiyay wax yaro kafafa oo noloshiisa dabara laakiin wax weyn oo meel ka dhigtay aan lahayn waqanna'ahu Allah oo hadana waqanna'ahu mankaas Allah ilaahi oo qanciyay bima shay oo ku qanciyay aataa lahu wa yahay mankaas uu siiyo wixii ilaahi uu siiyay ayuu ku qanciyay hadana حديث كان أصلاً وحديث كليحي طبناد وحكار له وحل إلى القناعة قناعة قفه إنه قنعه وهي إلهي سيء أو قنعه وحال لقورينا حديث سيدا مقطع عبد الله بن عمر بن عاص صحابي قاس أصلاً الترجمي سهراء وسوق عضني صحابي قامرك وحولي رسولك إلهي أيها وحولي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم قفك هرت إسلام نقضى أو إيمان قاطع أو مسلم نقضى والليباني أرنتاس مركا wax sahlan maahan islaamka wax la siisto ma jiraan macnaha a'zamu ni'matin an'ama Allahu biha alayna subhanahu wa ta'ala wa ni'mada ugu weyn oo qofka mu'minka ilaahay ugu nicmeeyay inaad islaam noqoto oo iimaan la timaado oo muslim noqoto wax sahlan ma wax la siistana ma jiraan haddana qofkaas wuxuu nabigu yiri waxa liibana qofka islaam ilaahay ka dhigo islaamay haddana waruziqa kafaafan
wax ku filan lagu irsaaqayo hanti ilaahay wax uu noloshiisa uu ku dabaro ayuu siiyey nolosha wax ugu filan kafaafa dad maqasho macnaheedu waxa waa marka qofkaas wax weyn oo ra'sumaal oo meel u yaal ma jiraan xoolo kale iyo hanti kale meel u taal iyo malahane wax uu markaas uu ku noolaado ayuu haystaa ilaahay ku irsaaqay haddana waqannacahu Allahu bima aataahu ilaahay haddana wixii uu siiyeyni waa ku qanciyo oo qofku haddii malaayiin uu helo hantiye haddii ilaahay uusan qanaaco siinin oo qalbiga uusan qanaaco gelin waxba tari maayaan hantidaas صادرت الحديث وحوها ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى نفسي أو كما قال صلى الله عليه وسلم معناها ما أهن تناد نمض هذا النمض ما أهن هنتي فربنا وقف كله لكن غناها نبتا أما هنتي ذا قف نبتا وعيتاي القناعة غنى نفسي إنه ليه إن نفتيسو أي غني تهي أي نفتيسو أي ديقتون تهي ساس أيام مهم أما هني أنها قفكو إنه هنتي هستو مهمة هنتي دا أدو هستو حدان إلهي أسان قناعكو السين وحبكو ترميد ولذلك وحال أركي قف اسكا مسكينة أو وحبها يسانين أو حدانا نلشو كنولي هاي أي عجيب تهي سيدا أرتبانتها نلشي سي قاب كيسي اللي قناعه هستاهي وحاكا لو الأركا قف ملايين هنتية له حدنا مع ذلك نلشو عرير أجره نلشي عرير كجره اللي قناعه هسته نفط باك دعد انتو كوبود هه بكتري كاسو كلا مركب ما وناغسنو مركب النبي وحو حديث كان waxa lagu amaanaya qanaacada qofku inuu maaragtay ilaahay wuxuu u dhiibo oo ku qanco taqwada marka laga hadlayay Sayyid Ali markuu taqwada ka hadlayay taqwada afar qodob ku soo koobay waxa kamid ah marka afarta waxa kamid ah al-qanaa'atu bil qalil qofku waxa uu heesto haba u yaraadaane inuu ku qanco ilaahay wuxuu ku siiyay inaad ku qanacdo maxaa yeelay wixii keenay qofku wuxuu heesto inuu ku qanco wixii keenay inuu ilaahay u shukriyo oo ilaahay u mahad celiyo inta uu heesto ilaahay uga mahad celiyo ilaahay markuu u mahad celiyane mahad celintaas wuxuu ku gaaraya hadan in ilaahay u siyaadiyo oo wax kale dheeraad oo helo la in shakartum la azidannakum sama ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay hadaad igu shukrisaan oo idii mahad celisaan ana waa idin kordhina nicmada iyo barwaaqada laakiin qofku hadiiba wixii uu heesto oo marka hore ku qanacsaneen koor mubarakta horta wax loo siyaadiyo wala in kafartum in adaabi la shadiid sidaas way xadiidkaas asigan imaam muslim ayaa soo saarayo إن شاء الله تعالى درسي أنت سوق السمية هاي هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شعب بلا أخلاق مصيبة جسيمة فانظر إلى الآفاق والحالة الأليمة إذا فشى النفاق والغش والنميمة والبخل والشقاق والجور والظليمة.